كعاف محمد جري محمد عبد إسحاق. تدفعني فين كل شيء محمد جري محمد عبد إسحاق. محمد ورا صديقي محمد جري محمد عبد إسحاق. محمد جري محمد عبد الساق دارشada diirta إيلو intee ka timid markii hore shabeellada hoose aba hooyada manuli kori fiir adiga aba hooyada manuli intee ka soo carartay adoo fiirna ilaahdan intee ka soo carartay ii sheeg oo xaafadiina waa intaa xaafadeen shabeellada hoose gobolka shabeellada hoose gaar ahaan buurdan ma waxa la shaqeynaysa kooxda argagixisada al-shabaab ayaga isoo wadan qolagaadii boosheeda awe ayaga qaatay nimanka dawladda qaatay diyaaradda marka shalay ku duqaysay adiga yaa kula socday ani rag badan ahayn rag arata waa dhuman meeshii loo waday ma aqaan raggi kale waa dhumeen adiga marka qorigaada markii dawladdu qaato waa soo carartay meeshaan al-shabaab ku ogadaa soo aadamiya wallahi ma ku arwaasday gaaja ku haysaa ciidamada isku diibnaa ciidamada isku diibnaa ayaga ku duwan dalka difaaca gaajina ku haysaa daraad hal mar maad nala si lagu nin dhalashadaada marka iyo deegaanka aad ku dhalatay hadana ay leedahay shabeellada hoose aan dhalashada tamahano aqoonsigaad ma wadataa aqoonsiga xarakada aad ku leedahay shabaab aqoonsiga ku leedahay ma wadataa daraad nala keenay waa baasan soo nala soo keenay waan soo daraad ma lagu keenay daraad nala keenay daraad marka magaalada laga soo qaaday gaar waa in saaban gaar marka saas waa in saaban anigu waa go'ay nala soo qabteeno waxa ay sheegtaa intee baawrka laga yidhi marka lagu soo qaaday webiga nala soo meelaha marka dawladdu inay joogto ma lagu sheegay maanta maxaa ku jiray gaaja naf wallahi bi waa marka waxaa sidaan idan inta shirkadana fiir idan dawladda jirta isku leeyahay gasino gaaja ku haysaa inta hooy ku muddo aab guuda ninka ku waa ka saarnayo isku leeyahay gay dawladda haye ayaga si karab ku yahay gadda qolgaadi bashkadi dawladda ka hay marka meesha la digu boqayna magaceeda sheeg aniga markoo meela ku jirni safari meela ku jirni markoo dur ku jirni haye marka waana la soo waday durtina la soo waday dadka loo galay haye marka waa la durayay haye waa soo aniga dadku waa kala arday marka haye waa la soo saas waa والله وايد دول من هذا يقدر بيمرتا من هذا يقدر والله اي بيو ايو كسيننا بيو marka yaa abtimahdo wallahi ma biyo ma hay daraad dalka Soomaaliyeed waxaan waxa ku suganahay miyiga kamid ah Hiiraan meeshan magaceeda waxa la dhahaa Xasan Raqay waxaan u imaaday argagixisada al-shabaab inaan ka saarno annagoo u dhan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama oo gumaaday ku hayaan maatada iyo shacabka iyo intii ku nool oo dhan deegaamadan maadaama bay ku hayaan dhibaatooyin shacabka Soomaaliyeed inaan garab istaagno oo wax walba dhib ay ku hayaan aan ka dulqaadno aan u taaganahay haday nafigu jirto inaan ka qayb noqdo oo meel walba al-shabaab ku jiraan aan ka saarno diyaar aan u nahay shacabka waxaan leeyahay intii aad ma taqaanaa horta waxa aad howlgalka nagula jiro allaha guuleeyaan leeyahay wixii naga dambeeyana sida anaga wadada mari doonaan rajaynaa dhibaatooyinka caruurta iyo waayeelada iyo dhalinyarada intaba ay ku hayaan oo u dulqaadan waayay waxaan u joogaa hadda wax walba dhibaato ay ku hayaan inaan ka saarno maadaama ay shacabka iyo marista iyo waayeelada ay dhibaato ku hayaan inta ku hayaan in ka badan inaan ku hay doono na alla daba joognaan u sheegaya wallahi intaan wadaan soo marnay ama dal soo marnay waa soo xureynay inta noo dhimana waa xureynayna waxaan leenahay inta noo dhimana guulaan rajaynayna inaan guuleysano annaga sidaan shacabka aanu garab u siinayna ayagana garab ay u soo siiyaan ayna garab joogaan ee waxba aynay luqyada ku jirin ay soo baxaan ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya soo garab istaagaan Soomaaliyeed xafiide yamiga xurma iyo maxay xushmad mudaayeen Soomaaliyeed xafiide yamiga xurma iyo
maxay xushmad mudan yihiin xornimo la helo xasiilo dalkani xooga Soomaaliyeed yaa xaqiiqdii iskale xornimo la helo xasiilo dalkani xooga Soomaaliyeed yaa xaqiiqdii iskale dhulka Soomaali weyn xamdi abe u kacay waa xalaale allow xafid xoogayaga dhulka Soomaali weyn xamdi abe u kacay waa xalaale allow xafid xoogayaga كل تاريخ حقيقة عبديو دقال حيرة هيروليو حوك الصوماليين حوك الصوماليين يا حقيقي جراهي كل تاريخ حقيقة عبديو دقال حيرة هيروليو حوك الصوماليين حوك الصوماليين يا حقيقي جراهي حاسد صومالي ذي حمانتين نجي الحربين الله قال وهي حركي قواني حاسد صومالي ذي حمانتين نجي الحربين الله قال وهي حركي قواني dhulka qaranka iyo xooga Soomaali weyn ka xoreeyay cadow man xaqiiri kara dhulka qaranka iyo xooga Soomaali weyn ka xoreeyay cadow man xaqiiri kara xuduudaha dalkana waan ku xeerano xakamahan surnaa xurma ruuxii ka taga naantihi ama cali dheera ahaw ama karatay ahaw ama midka la leeyahay waa jiran yahay oo shaydaanka ugu weyn ha ahaadee waxaan xabad hay nagama dhaxeeyaan asxaana nagama dhaxeeyo dadka aad isku soo aadayday ilmihii aad dhasheen Yurub iyo Mareykanka geestaan jaamacad u dhigeen aan ilmo islaameed qarxiyeen wax naga dhaxeeyo asxaan ma jiraan xabad aan oo dhax ragnimadiina iyo xaniina fuula bariga waa soo dhamaaday iyo heshiiheena iyo hebelooday tahay iska dhaafaysan waa dhamaatay Ilaahay Raxmaan Raxiim anigoo ah Suudaanka beelaha wiye shir jiray inaan rabaa inaan meelaan ku qabto nimankii argagixisada ahay waxay keeneen intay dad soo afduubaan inay dhahaan halla shabaab iyo beelaha wiyo la hadla odayaal la hadla adeer waxaas ma jiraan qof in la hadli ma jirto marka dadka leeyahaydeen hotel Shaamo iyo meeshii la soobe iyo dadkii madaxda aan leeyahaydeen dadku soo hawiye ma ahayn hawiyana hadda waa ka baxday waa Soomaali weyn haddaad rabtaan inaad soo dhiibtaan madaxweynaha taliyaha nabadsuuda mahad salaadeed u tegaydaan hubka iyo lacagtii wax alla waxaad haydaan wareejeedaan qof in ka leexay ma jirto xabad waxaan ahaynoo leen kaga leexay ma jirto waxba cala calinina waxa way dadka oo hor wadili jirtay sidii aan noo dhax ah wax asxaan oo dhaxmaan hadda anigu waxaan ka imid halkaas jiidaasan ka imid odayaal aad wad u soo dhiibteen taad afduubteen qaar jeceelaan hay iyo muduleedaan hay adeer waxaas ma jireen waxba cala calinina farti aad taqaanaan akhriya qofka dili kartaan dila ilmaha aad dilaydaan iyo dadka aad dilaydaan dadaa dhalay daday la dhasheen calanay leeyihiin
calanka dowladda dhexe iyo calanka galmudug ama hirshabelle ha ahaado ama jubbaland ha ahaado ama koonfur galbeed hadda somaliland xoogaa iyagu waa run yihiin buntlandna galgali jiraan galgaladan waa looga dabatega hadda labadan gobolaa ah xoogga la saara markii laga baxshana koonfur galbeed iyo jubbalandna looga dabatega wax asxaana idinka annaka nooga dhexeeya qabiilna maahidin annakuna qabiil manihin calanka buluggaha naga dhexeeya calanka nagi buluggahayna waa bedesheen diinta ilaahay beenaad ka sheegteen wax iskugu qaadna dhibman xooyihin odu calacalaydan odayaal masaakiina qoryaha ku qabanine fagaaraha iyo meesha xabaddu ka socoto inaaw cali dheerow adiga meelaha ka baqbaqle shaydaana tahay diin ilaahayna ma wadid horeyaad noogu gaad 15 sano aad been nagula nooleed iyo diin ilaahay ayaan wada war nimanka iska diin ilaahay wadaan hadinina sida loo lahay qolooyin kala u soconaa beenay noqotay meesha la hiiraan ilmo iyo dad waayeel aad baabuur intaad loob u geliyad miina ku kor xirtay galmudug wax alla wixii ciyaarahay waa dishay odag u weynaayo oo galaal ahay waa dishay waxaa tiri 12 sano raadaay galmudug haddaad iyo boqooje dadkii la dilay oo dhan haddaad dad disheen oo raadaydeen anakuna waa idin raadayna waxba calacalinina calacal waa soo dhammaaday diin ilaahayna ma wadaad qabiil ma hidin